محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدحونا كحيانك دولة بنتلان قدومي كحيانك لواد قلها وكيلة دولة بنتلان وزيرة قلها حكومة بنتلان حكومها قلها وكيلة صاحبة وزارة وحبرشة دمان كسوهم كلياشة مسؤولين تكالدون iyo qunsuliyadda Ethiopia. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ba'da salam waxaa sharaf noo ah maanta halkaan shirkan inuu noo qabsoomo ay ugu hogaaminayaan madaxda dowladda ugu sarreysa madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada ay goobjoog u yihiin dad badan oo muhiim u ah shirkankan. aada iyo aada ayay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland iyo guud ahaan bahda waxbarashada Puntland anigoo magacooda ku hadlaya ay sharaf u tahay. waxaan rabaa inaan xoojiyo mahadnaqa kasoo qaybgalka iyo soo dhaweynta oo horeyna halka looga soo jeediyey. intaas kadib mudane madaxweyne iyo dhammaan mas-uuliyiinta halka fadhiya, shirka kan ma aha shir hadda bilowday, waa shirkii 7aad sida ka muuqata muuqaalada ama warbixinta lagu warbixiyey. ujeedadiisuna waxay tahay in dib loo eego qorshihii guud ee degsanaa oo loogu talagalay in lagu gaaro yoolasha ay u dhisan tahay wasaaradda waxbarashadu ee ku aadan arrimaha waxbarashada. maxaa ka qabsoomay, maxaa caqabadaha uu jiray, maxaa ay tahay in laga barto, xaggeese loo socdaa. sida la xusay waxaan halkaan rabnaa shirkan inaan uga faa'iidaysano inaan ku qiimeyno 2 sano ee 2023-2024 oo ka mid ah qorshaha guud ee istiraatiijiga ee 5 sano oo 2023-2027 ee waxbarashada Puntland. ma la gaaray qorshahaasi wixii uu sheegayey iyo halkii la rabay in la higsado. qorshe kasta marka la sameeyo hanaanka loo fulinayo iyo maalgelinta uu u baahan yahayna waa lagama maarmaan in la helo. taa laftirkeeda waxaa diiradda lagu saari doonaa wixii la filayay maxaa hirgalay, maxaa gaabtay iyo sababaha. shirkan ma aha sida caadiyan hay-adaha dowladdu ay ku soo bandhigaan waxqabadyadooda keliya ma aha, shir carwaana ma aha, laakiin waa shir inta tan loogu casumay in laga doodo qorshahaas la dejiyey ee loo arkay yoolasha waxbarashada laga leeyahay in lagu hirgeliyo si dhab ah, in loo qiimeeyo, xog rasmiya la soo gudbiyo, xogtaasna halkaa lagu soo bandhigo, talooyinkiina aad ka dhiibataan, si dhab ahna looga doodo idinkoo ku dari doona waayo aragnimadiina. wasaaradda waxbarashada keliya ma leh, dabcan sida ka muuqata magaca si wadajir ah ayaa loo sameynaya dib u eegista. marka dowladdii iyo bulshadii iyo saaxiibadii qorshahan inoo suurto gelinaya ama ina ka caawinayay inay inala hirgeliyaan ayaa maanta shirkan madan u yahay inay fursad u helaan in si wadajir ah dadaalkaas baldib loogu qiimeeyo. waxaa xusid mudan sanadihii hore waxaa wasaaradda waxbarashada ka taageeri jiray ama loo baahan jiray khubaro bannaanka ah
laakiin maantay khubarada wasaaradda waxbarashadu waxay awood u yeesheen in ay dib u eegistaas wixii laga soo diyaariyey iyo xogtii laga soo ururiyey ay ku filaadaan. mudane madaxweyne iyo dhammaan mas-uuliyiinta kala duwan iyo innagoo dhan iyo reer puntlandba waxay muujinaysaa arrintaas bisaylka gudaha hay-adaheenna ka jira dawliga ah in aynu isku filaano oo aan khubaro bannaanka laga keenin. taasi waxay dhiirigelinaysaa oo tusaale u tahay dad badan oo ku filan waxa aynu rabno inaan qabsanno in laga heli karo hay-adaheenna gudahooda iyo bannaanka. marka taasna waa arrin aan rabo inaan dul istaago oo xusid mudan. waxaan rabaa inaan halkaan uga mahad celiyay intii kasoo qayb qaadatay kulankaana inuu qabsoomo. guud ahaan waxqabadka wixii qabsoomay iyo dadaalada inay qabsoomaan hirgelinteeda oo bahda waxbarashada meel kasta oo ay joogto iyadana waxaan rabaa inaan u mahad celiyo. sida la sheegay markii laga hadlo waxbarashada ama sector walbaba aan ka hadalno meesha aynu marayno waxaynu jecelnahay meel ka sarraysa inaynu gaaro. marka haddii dhaliilo badan la soo jeediyo gaabis badan la soo jeediyo maaha wasaaradda waxbarashadu inay u arkayso ama dowladduba in aysan jeclaysan, laakiin waxay u arkaysaa in wax la qabtay, meel la joogo, meesha la higsanayana la rabo in la gaaro. intaa la sheegayana ay tahay sababta madasha loo qabtay oo ah talooyinka noocaasa in la helo. intaas kadib mudane madaxweyne dowlad ahaan inta bannaanka joogta iyo inta madashan joogta iyo cid kastoo wax qiimeynaysa dowladda waxaa laga filayaa ma rabo inaan ka hor dhaco laakiin xogta la soo bandhigi doono 700,000 wax ka badan ayaa lagu qiyaasaa da-yarta waxbarashada da-deeda gaartay. intee baynu marka inagu joognaa? wasaaradda waxbarashadu marka yoolka ugu horreeyo ay higsanaysaa waxa weeye da-yartaas da-da waxbarashada gaartay see loo gaari karaa? hadda xaggee baynu joognaa? waxaan rabaa si hore dhaca inaan usii tilmaamay intaan documentarigaas xogtaas khubaradu aysan soo jeedin 67% ka mid ah oo aan codsan doona hadhowtii bal inta ay noqonaysa in la sheego inay yihiin dad aan u helin inay soo gaaraan goobaha waxbarashada. 33% ka mid ah ayaa hadda waxay inoo joogaan ama access u helay goobaha waxbarashada inay soo gaaraan. 67kaas marka yool in la sugaayo inaan gaaro. waxbarashadeena marka wax badanaa dhiman ilaa 67 aan xaqiijino inaan gaaro. bulshadeennana waa garanaynaa marka gaariska ku jira marka la yidhaahdo da-dii la rabay goobaha waxbarashada inay gaaraan dadkii la rabay 67 ka mida boqolkii ma aysan gaarin. waxaan u malaynayaa inaysan suurtogeli doonin waxa aynu ku taabayno ummad ahaan inaan noqono. runtii markaan nahay mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo guud ahaan bahda waxbarashada waxaan is leeyahay dadaalka intii la keri karay waa la sameeyey, laakiin haddana markay kuu muuqato 67 ka mid ah waxay keenaysaa walwal badan. walwalkaasi see marka lagu suurtogelin karaa in laga baxo? waxaa lagu suurtogelin karaa dowladdu ka go-naansho dhab ah inay keento. waalidku karaankooda waa qaateen, waa dadaaleen. in badan hadda inta la leeyahay waalidka maalgelin sameeyey waa intii awoodi kadhay inay ilmahooda wuxuun ka bixiyaan, waana intaa 33 ee goobaha waxbarashada soo gaaray. laakiin 67% aan goobaha waxbarashada soo gaarin waa inaan waxba awoodin. arrintaasi waa arrin weyn oo hortaada. meesha aan rabno inaan higsano
ما لو تامر سنة بعد وحبرشة لأنه الضغط في وجود بين وصول بيرها institution جري أو سواسة ذيولي السبب الوجود وعي محوها قرشها حتى الشنطة السنة أو استراتيجي برانكا محو شيء يا سنة كيل لقيها بقول كيل لبعض مركز الشنطة السنة وسواسة طول ما كل سنة حلوات إلى ما كل يتدوي لبعض معناه هذا واحد تسبب السداد بقول كيل لقيها سفر دير halkaas waxay la tahay waxay u baahan tahay in aan maskaxda ku hayno tayada in laga hadlo in badan baa laga hadlay inta tayadooda hagaajinayna waa inta 33daas asheego hadda goobaha waxbarashada jooga marka runtii waa arrin culayskeeda leh oo u baahan dowlad ahaanna inaan commitment xoog aan samayno bulsho ahaanna bulshadeenu ay ku baraarugsanaato annaga ka wasaarad ahaan waxaa naga go-an yoolkaas si alla sidii lagu xaqiijin karo inaan dhexda u xiranno waxaan rajaynaynaa inaan kaalmaysano madaxda naga sarreysa iyo bulshadeenna iyo saaxiibadeen aada iyo aad baad mahadsantihiin shirkan waxaan rajaynaynaa wax macnale inay ka soo baxaan maanta maahan maalin kalaa jiri doonta doodu u yeelan doonaa xogtaas macluumaad badan bay xambaarsan tahay waynu wada dhegeysan doonaa fursad